saacadii la soo dhaafay ayaa aad loogu faafiyey baraha bulshada arooska fanaanada caanka ah ee halyeeyada farxiifiska iyo Mubaarak October oo ah fanaan da'yar oo ku nool magaalada Hargeysa ee deegaanada Somaliland. haddaba maxaa ka taqaanaa qisada jacayl ee farxiifiska iyo Mubaarak? goormee ayuu soo bilowday? ma wuxuu jawaab u yahay guurka halyeeyigii hore ee farxiifiska dhawaana guursaday fanaanada caanka ah ee Najm Nashaad ee Bashiir Hanuuniye? haddaba si aad muuqaalkan u sii daawato daawade sheerde la wadaaga asxaabtiina aad bad u mahadsantihiin. fanaanada miisaanka culus ee caanka ah Farxi Axmed Cadaawe Geedi farxiifiska ayaa mar qura ka soo muuqatay baraha bulshada iyadoo aroos ah isla markaana si xor ah kula soo wareegtay fanaanka dhalinyarada ah ee Mubaarak Abuukar Yuusuf oo loo yaqaano Mubaarak October. qisada lamaanayaashan ayaa la sheegay inaysan ahayn mid soo booda ah balse jacaylkooda uu yahay mid in muddo ah soo jiray dad badanna aysan ka warheynin. waxaa mar qura ka soo baraarugay fanaaniin badan oo qaarkood isgaadgaad ku hayay fanaanada iyo fanaanka intaba. halyeeyada caanka ah ee farxiifiska ayaa hadda u muuqata mid suuqa la soo galaysa wiilasha yaryar oo qaarkood ay dhali karto, waxaana taasi niyad ay ku abuurtay fanaaniin badan oo hami ka lahaa oo meel cidla ah ay kaga tagtay. meherka farxiifiska iyo Mubaarak ayaa toddobaadkan ka qabsoomay magaalada Hargeysa ee deegaanada Somaliland, waxaana ka qayb galay fanaaniin fara badan iyadoo qaarkood kiis looga dhigay. waxaana la sheegay in meherkeeda uu ahaa in ka badan 100 garaam oo dahab ah. Mubaarak October ayaa fanka soo galay isaga oo 12 jir ah, wuxuuna ku dhiirigeliyay aabihiis Abuukar Yuusuf oo isaga qudhiisa fanaan ah. wuxuuse ku guuleystay inuu hanto fanaanada ay in badan raadinayeen madax iyo shacab in mar qura uu la aqalgalo. sida aad u sheegtay way Faadumoy Mubaarak anaan dhalay aabihiis baanahay. dadku ama Soomaalidu waxa laga yaabaa in badan oo ila yaabta in la arko in badan oo ila raacda ra'yiga inaan soo bandhigo Mubaarak 12 jir inuu heeso. in badan oo ra'yiga igu raacdana way badnaan doontaa in iga hortimaadana way dhici kartaa dabcan, laakiin Soomaalidu badana inagu maynu ogolin Soomaalidu dad ilmihiisa oo yar inuu heeso. xaasha lilaahi hadda ammaan iyo cayba waxa ay mudayihiinba farxiifiska magaalada waa ay ka xarootay, waxaana ay la aqal gashay isaygeeda cusub ee Mubaarak. waxa ayna heshay ninkii boodbootin lahaa, waxaana xogaa la helay ay sheegayaan inay ninkan uu yahay kii sideedaad oo ay guursato farxiifiska. Farxi Axmed Cadaawe Geedi farxiifiska waan jeclaa weligii waan jeclaan doonaa, waxaan aaminsanahay in ahay ninka uu nasiibka badan adduunka maadaama aan helay qofkii aan jeclaa aanu ku guuleystay, ayuu yiri Mubaarak October oo rabaahinta la hadlayay. haddaba daawade ma taageersan tahay guurka ama arooska farxiifiska iyo Mubaarak October oo aad loo hadal hayo?